qabso daabkaaga. Waxaad tahay saxaabiyad, waxaad jeceshahay inaad aado masaajidka nebiga oo ah halka uu joogo nebiga sallallahu calayhi wasallam. Waayo qof walba waxa uu jecel yahay mar walba inuu joogo qofka uu jecel yahay garabkiisa. Nin ayaa waxa uu soo maray masaajidka isaga oo wata falaar. Nebiga ayaa ku yiri qabo afkeeda. Nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa maalin waxa uu yiri haddii midkiin uu soo maro masaajidka isaga oo wato seef ama falaar ha qabto afkeeda si uusan qof muslim ah ugu dhibaataynin. Saxaabiyada nebigaaga iyo xabiibkaaga Muxamed ah wuxuu ku dadaali jiray mar walba inaan wax dhib ah loo geysan qof muslim ah, xitaa haddii uu dhibkaas yahay mid aan loo samaynin ula kac. Sidaas awgeed ayuu ninkaasi wuxuu amray inuu falaarihiisa afkooda qabto. Dabcan daabkaas la qabanayo kuma koobno seefta ama waranka, ee xitaa carabka waxa uu leeyahay af wax dhaawaco oo ka daran seefta iyo falaarta. Waayo dhaawaca seefta iyo falaarta waa laga bogsoodaa, laakiinse dhaawacyada carabka uu geysto lagama bogsoodo oo mar walba waxay xanuunjiyaan qalbiga. Ee daabkaaga qabso. Saxaabiyada waxa ugu xun ee lagu imtixaamay dadka xilligan joogo waa inaysan kala aqoonin laabfurnaanta iyo afxumida. Laabfurnaanta iyo daacadnimada waa in saaxiibta marka ay qaldanto qaladkeeda ugu sheegto si galgacayl iyo deganaan ah, si aysan dembigeeda ugu sii madax adeegin. Daacadnimada iyo laabfurnaanta waa inaad difaacdo qof wax laga sheegayo sharafkiisa, hilibkiisana la cunayo isaga oo maqan. daacadnimadu waa inaad dadka u waaniso alle dartii. Intaas wixii ka soo harana waa edeb darro aan loo meeldayin. Waa edeb darro xitaa haddii ay tahay xaqiiqo. Gabar aan qurxoonayn marka u sheegayso inaysan qurxoonayn waa edeb darro iyo afxumo xitaa haddii ay dhab tahay. Gabar dharkeeda ku faraxsan marka u sheegayso inay tahay wax lagu qoslo oo ay baalmarsan tahay fashionka, taas xitaa waa afxumo aan loo meeldayin. xitaa haddii xaqiiqo tahay, xaqiiqo walba lama sheego. yaa ku wakiishay adiga dadkiina u sheegto xaqiiqadooda. dareenka oo la ilaaliyo ayaa ka muhiimsan xaqiiqada aad sheegayso haddii aysan dembi ahayn. saxaabiyada ha noqonin mid mar walba wax dhaawacdo. saxaabiyada erayada qaar ee aad sheegayso adigoo aan isweydiinin saamaynta ay ku yeelan karto qofka maqlaayo, adigu waa iloobaysaa erayadaas, balse qofkaas ma iloobayo oo waxaa laga yaabaa inuusan ka seexanin habeenno badan. marka aad galayso guryaha dadka, gal adigoo indhala. marka aad ka soo baxaysan ka soo bax adigoo afla. waxba kaama gelin adiga sida ay heblaayo ugu sabrayso faqiirnimada ninkeeda iyo dabeecadiisa. anku weydiiye maxaa u duminaysaa guryaha, jacaylkana u kala geyne. bani aadamku way u dulqaataan xaqiiqadooda, qof walbana waxaa la siiyey in ku filan oo xaqiiqo ah. adiga iyo adduunkana dadka ha ku noqonina culays. hadal wanaagsan haddii aad sheegayso alle ha ku barakeeyo, haddii aadan hayninna aamusnaantaada allah kuu barakeeyo. waxba kaama gelin adiga deriskaaga sababtii u soo iibsan waayeen dhar cusub. yaa kuu sheegay adiga inaysan rabintaas, laakiinse guri walba waxa uu leeyahay sir u qaas ah. waxba kaama gelin adiga sababta ay saaxiibta alaabta gurigeeda aysan isaga bedelin oo ay u haysato kuwo qadiimi ah. ma waxaa u malaysaa dadka oo dhan waxaa awoodo inay awoodaan, mise waxaa u malaysaa dadka oo dhan hantidaadoo kale inay haystaan? bani aadamku way ka siman yihiin wax la'aanta. qof walba waxa uu haysto wax ka badan ayuu raadiyaa, ee adiga waxba dhaawacyada cusbaha marinin. saxaabiyada nebigaaga iyo xabiibkaaga Muxamed ah waxa uu yiri qofkii rumaysan alle iyo maalinka aakhiro ha yiraahdo khayr ama ha iska aamuso. warkii oo kooban waa intaas: ama hadal wanaagsan ama aamusnaan wanaagsan. hadalku waa qurux, xitaa waxa uu ka qurxoon yahay dharka qurxoon iyo wax walba oo la isku qurxiyo ama la isku carfiyo. noqo adigana mid qurxoon. hadal kastoo aad leedahay dooro erayada kuwooda ugu wanaagsan. waxyaabaha xunna waxa u sheegi kartaa qaab wanaagsan. nin boqor ahaa ayaa waxa uu riyo ku arkay isagoo ay ka daadanayaan ilkaha. waardiyihiisa ayuu ka dalbaday inay u keenaan qof u fasiro riyadaas. ninkii riyada fasiraayay ayaa markii loo sheegay riyada waxa uu yiri qoyskaaga oo dhan ayaa hortaada ku dhiman doono mid weliba.
boqorkii ayaa markaas aad u xanaaqay wuxuuna amray in la xiro ninka. nin kale oo riyada fasiro ayaa la raadiyey mar kale. markii la keenay ee loo sheegay riyadana waxa uu yidhi, qoyskaaga oo dhan ayaa hortaada ku dhiman doono, welibana mid mid. boqorkii ayaa mar kale xanaaqay wuxuuna amray in la xiro ninkan. mar kale waxaa la raadiyey nin kale oo saddexaad oo riyada fasiro. markii la keenay ee loo sheegay riyadana waxa uu yidhi, allah, riyadan qurux badanaa boqorow, waxaa noqonaysaa midka ugu cimriga dheer qoyskaaga. boqorkii ayaa ku farxay hadalkaas, waxa uuna amray in la abaalmariyo ninkaas. riyadu waa sida ay ku fasireen nimankii hore oo ahayd in qoyska ay ka hor dhimanayaan boqorka, maadaama ay qoyska ka hor dhimanayaanna isaga ayaa ah kan ugu cimriga dheer. riyadu waa sideeda oo isma beddelin, ee waxaa isbeddelay qaabka loo sheegay. adigana dooro qaabkaaga.